haweeneydan Koreaanka magaceedu waa Lucy, da'deeduna waa 36 jir. Lucy waxay ahayd mid jecel dilka si xad dhaaf waliba ilaa ay ka go'aansato maalin maalmaha kamid ah in ay tijaabso dareenka dilka. Waxay bilowday in ay akhriso buug iyo macluumaad ku saabsan dilka. Talaabadii koowaad waxay bilowday in ay raadiso sida loo qariyo meydka. Talaabadii labaadna qofka ay dilayso inay raadiso. Lucy waxay bilowday in ay la xiriirto macluumaadka Ingiriiska iyadoo been u sheegaysa oo ku dhahaysa kaale inanteeda yar iyo diiwaangeli xisada Ingiriiska. Macluumaadkii way ka yeeshay inay ugu imanayso guriga. Macluumaadkii way u tagtay Lucy markii ay macluumaadkii albaabka soo furtay. Macluumaadkii ay soo weerartay in ka badan 6 jeer ayay mindi gelisay. Kadibna meydkeeda ayay jarjartay waxayna ku riday boorasta safarka. Isla markiiba taxi ay raacday waxayna ka dalbatay inuu geeyo wabiga agteeda. Markii ay soo gaartay wabiga agteeda boorsadii ayay ku tuurtay. Ninkii taxi-laha ayaa ka shakiyay wuxuuna wacay askartii. Wuxuuna u sheegay meesha ay degan tahay Lucy. 15 daqiiqo markii ay ka soo wareegtay meesha ay joogto Lucy ayay askartii ugu yimaadeen waxayna arkeen dharkeedii oo dhiiga. Baaritaanku markuu socday Lucy waxay tiri waxaan u dilay iskhilaaf naga dhaxay awgeed. Laakiin markii dambe waxay qaratay dambigeedii waxayna dhahday waxaan u dilay xiiso darteed si aan u dareemo waxay dareemeen dambiilayaasha.